annaga maanan ka qayb galin hadda xamar ka furmay maanta waxaanan uga qayb galin waxa weeyaan marka koowaad casumaadda la soo diray sida aan hore uga baranay casumaadda mid toos noogu timid maysan hayne marka koowaad waxay noqotay mid baraha bulshada aanu ka helay ayay ahayd casumaadda marka labaad casumaadda xafiiska ay ku habbooneyd looma dirin meesha madaxweyneyaal baa la casumay madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ayay ahayd in loo wada diro si qalada ayay waxay usoo direen in wasiirka maaliyaddu uu jubbaland ku matali doono nidaam iyo dastuur baan leenahay doorasho xor iyo xalaala ka dhacday jubbaland madaxweynaha la doortay xildhibaanaha ka horeeyey xildhibaanadaa doortay xildhibaanadaa si sharci lagu soo doortay xildhibaanada waxaa soo xulay odayaashii dhaqanka ee soo jireenka ahaa ee jubbaland ay lahayd inta badanna ay ka mid yihiin odayaashii soo xulay ama salaadiinta soo xushay xildhibaanada dowladda federaalka oo 135 diiwaan gashan ayay ahaayeen dhammaantood marka baarlamaankii baa sharci ahaa doorashadii guddoonka baarlamaanka sharci ahaa waxaa sharci ah doorashadii madaxweynaha ayaa sharci ah marka shir ay isugu imanayaan madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka dowladda federaalkana mas-uuliyiintii ugu sarreysay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii ay kasoo qeyb galayaan in wasiir lagu soo qoro aad bay qalad u ahayd waana tallaabooyinka qalqaldan ee aan uga baranay inay ka yimaadaan dowladda federaalka ah ee wadanka dib loogu celinayo wey ministerial level markay noqoto ama heer wasiir markay noqoto shirkii dayn cafinta waxaanu ku kulannay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka iyo wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka shirku marku hadduu leeyahay heer wasiir hadduu noqonayo waanu tegi lahayn waanu ka qayb geli lahayn waanu ka soo jeedin lahayn aragtida laakiin dee shirkii isagoo heer madaxweyne ah ayaa wasiir lagu casumay waa qalad weeye mana ogolaanayno nidaamii kala dambeyn baa meesha ka jirta dastuur baa jira hay-adihii dowliga noo dhisan madaxweynaha la doortay madaxweynaha sharciga madaxweyne axmed maxamed islaam isagaana awoodda maanta iskale oo sharci lagu doortay marka wasiir baa ka qayb gelaya isaguna kama qayb gelayo mana ogolaanayno sharciyadna looma lahataa wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in qaar kale oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ay iyaguna shirkan qaadaceen taas oo u sababay in madaxda ugu sarreysa xukuumadda federaalka dalka aysan ka shaqaynin isudumidda iyo mideynta ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyn wasiirka ayaa xaqiijiyay in aysan suuragal ahayn sharcigan aysan waafaqsanayn in qodobo ka soo baxa shirkan oo kale oo ah mid aan loo dhannayn dalka lagu dhaqo oo la dhaqan geliyo shirarka inta badan sidaa u dhaca hadda Puntland way ka maqan tahay Jubbaland way ka maqan tahay galmudug naftirkeeda ma garanayno wuxuu noqon doono xaalkeeda laakiin haddii hal xubin oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay shir ka maqan tahay shirkaa wixii ka soo baxaa wax maaragtay shaqaynaya ma noqonayo waa in loo dhan yahay weeye la wada socdo weeye shirna la isuguma imaan karo iyadoo aan laga heshiin siyaasadda guud ee waddanka khilaaf baa jira dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inta iyo laga heshiinayo shirarkan ha socdaano macquul ma aha hal shir waanu ogolaanay waa shirkii dayn cafinta waa national issue macnaha waa wax Soomaaliya oo dhan u wada yaalla wey annagoo og in khilaaf siyaasadeed uu jiro yaan haddana ka shaqaynaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo in deynta laga cafiyo